sheeko lama ilaawaan ah laba saaxiib oo ka tirsan qaranka Soomaaliya ayaa riyadooda ku eryanaya xaalad aan macquul ahayn waa sheeko badbaado sheeko xuquuqul insaan iyo safar isboorti oo naadir ah asal ahaan waxaa laga soo kaxeeyay Soomaaliya kadib Kenya ugu dambeynna waxa ay ku biyo dhameysteen Mareykan oo ay hadda ku nool yihiin waxaa ka soo bilaabay xaafad la dhaho Sagaalaad so sportiga meesha ka soo bilaabay hooyadeedana ugu dhiirigeli jirtay kaba iyo isoo geli jirtay dharka sportiga ah xirto muddo 3 sano ayuu socday barnaamijkan waxaana loo shaqeynayay in sheekada Soomaalida lagu soo bandhigo indhaha saaxiibada kubadda cagta hortooda oo ay ku xiran tahay riyo la wadaago si ay u dhiirigeliyaan dadkooda rajo waxna weyn ay ka filaay garoon cusub oo bacaad marka arkay xogaa like inuu qof oo garoon caadi soo bartay waxay u noqotay very challenge cusub ay u noqotay oo ah in garoonka la qabsatay si ahaanba ciyaarta officialka ee ugu horeysa ciyaarta horyaalka ee waxa u baxay kooxda horseed ciyaartaasna waxa ku xasuustaa waxa ku dhacay iyaga wax mucjiso ma rajada ayaa ah in filimkan uu bilaabi doono inuu iftiimiyo awoodda ku wariyooda ay u leeyihiin inay dhiirigeliyaan jiilkooda mahado idin waxa iska leh ninka dhabta ah ee fagaaraha ku jira wajigiisuna boorka dhididka iyo dhiig uu ku xumaaday kuna xinjireystay si geesinimo lehna u dadaalaya si uu u guuleysto ama champion Soomaaliya gudaheeda Saacad Saalax Xuseen waa shakhsi caan ka dhax ah markii uu shabaqa soo taabtay goolkii uu ku mutaystay xulkiisa kubadda cagta ee 2011 waxa uu ahaa shaygii ugu dhawaayay la tilmaami karay geesi dalkiisa la qarxiyay haddana guul dareystay laakiin 4 sano kadib wuxuu ku dhuumaaleysanayaa Kenya gaajo jabjoodariya iyo dabaq wasaq ah oo ku dhex yaala Nairobi ayuu ku nool yahay isaga oo naftiisa ka qarinaya dhibaatooyinkaasi waxa uu ka dhex baxsanayaa mawjado qulqulatooyin ah iyo cabsi soo wajahday ammaankiisa ayuuna halkan u joogaa isaga iyo saaxiibkiisa ugu dhow Saadaq Maxamed oo Soomaalida ay u taqaan Balotelli isaguna ahaa ciyaaryahan kubadda cagta Soomaaliya soo ciyaaray waxay noqdeen mawduucyo documentary oo aad u xiiso badan processa ku imaaday waxa jira nin la dhaho JR oo aad aan isku fiicanahay oo sameeyay documentary aan sameeyay in arena ka ahaa director marka process ninkaas process ahaan ugu soo dhameeyay aniga iyo saaxiibkayga marka imaaday nimanka already qaranka la socdeen way joogeen hotelka qaranka deganaayeen su'aalo dadku weydiinayeen marka xilligaas marka luqad ahaan maaragtay aniga markaas si fiican u la hadli karay waxa uu dhahay ciyaaryahankaas weyn adiga waaye oo kooxdaas u ciyaartay sidata amal oo fiicana waa sidii rag isku baran marka ujeedka ugu weyn waxay ahayn ayaga inay qaranka Soomaaliya sheekada macnaha dagaalada Soomaaliya ka jira iyo burcadbadeednimada iyo barnaamijyada kale oo fahmi kartid like Soomaaliya wax badan lagu tilmaamay argagixisana nahay in dad oo burcadbadeed nahay marka waxay rabeen sheeko ah in macnaha ay jiraan dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo sidaas loo arkin in oo burcadbadeedna ahayn oo barnaamijyada kale ku jirin mafaan sidoo waxay ku saabsanayd in qaranka Soomaaliya ka soo saaraan filimku waxa uu muujiyay in Saacad loogu hanjabay in la dili doono ka hor inta aan lagu karbaashin tuuladiisa dadka hortooda kooxda Al-Shabaab oo halka ka talinaya ayaana sidaas sameeyay qaar ka mid ah dadka tirada yar ee Saacad iyo Saadaq oo kala ah wulina la aamini karo kumanaan meel ayay u jiraan Mareykan dhibaatooyin ayayna kula kulmayaan qaaradii ay ku lasheen kuna koreen si ay uga baxaana way ku adag tahay laakiin shakhsi ku nool St. Louis oo ka tirsan Mareykan ayaa ruux walba ku qancinaya shakhsiyaadkan in la soo qaado waa sameeyaha filimka documentary ee loogu magac daray Man in Arena wadan walba ayuu ka codsanayaa oo nabdoon in qaxooti ahaan uu aqbalo shakhsiyaadkan maadaama bartilmaameed kooban ay noqdeen waxay ahayd inay noqdaan kuwa xifaaltama laakiin taa beddelkeeda waxay noqdeen Saacad iyo Saadaq saaxiibo isku xiran isaga oo caata ah weyla bira leh
garkana uu xiran yahay ayuu u ciyaari jiray naadiga jaalayaasha Elman Saad Saalax laakiin Saadaq oo 2 sano ka yar dhowr injiisa ka dheer tima curdunah leh waxa uu ahaa mid ka soo horjeeda kooxda Elman Banaadir Sport Club ayuuna xiranayay maaliyadeeda markii ay kooxuhu ugu dambeyn isku haleeleen ciyaar ka mid ah tartanka horyaalka Saadaq wax ku filan ayuu ka maqlayay baraha bulshada iyo raadiyaha dhammaan dadku waxay hadal hayeen Saad aqoon fiican u maan lahayn sidoo kale waxaan u maleynayay inay markaa noqon doonto xilligii aan garaaci lahaa isaga iyo kooxdiisa ayuu Saadaq yiri laakiin ciyaartii ugu horeysay oo labadan wiil ay iska hor yimaadaan ayaa ku dhamaatay barbardhac markii kale ugu horeysay oo ay ku kulmaan xulka qaranka Soomaaliya 2012 waxay ku dhameysteen hal qol kadibna saaxiibo isku dhaw oo isku dhinac ah ayay noqdeen kooxay qayb ka ahaayeen oo qaranka ah markii ay u duuleen Suudaan Saadaq waxa uu ogaaday in Saad uusan buuxinayn warqadihiisa dalku galka ah 2 jeer ayuu Saad dhinac u riixay warqada isaga oo leh hadhow ayaan buuxin doonaa caajis baa tahay Saadaq ayaa kula kaftamay Saad laakiin waa uu ogaa inay wax jiraan Saad uu xishooday waxa uu ahaa 19 jir weligiina ma uusan galin iskuul si uu u barto wax qorista waxa uu ahaa mid ka soo jeeda sida isaga markuu taariikhda noloshiisa uu ka sheekeynayay uu qiray qoysaan awoodin inay ka bixiyaan dugsiga dhaqaalihiisa sida daraadeed maalinta waa uu saxiixi waayay Saad magaciisa halkan dadku way naxan haddii aadan ku jirin dugsiga dhexe Saadaq ayaa yiri laakiin isku mid maahan Afrika haddii aad ilma Afrikaana tahay haddii aadan wax barasho helin oo aadan dalkana ka bixi karin maxaad samaynaysaa haddii aadan wax qori karin maahan in aadan shaqaysan karin ayuu Saadaq yiri meesha kaliya la magan galo Soomaaliya waxay ahayd kubadda cagta caruurtu way ciyaari karaan xitaa haddaysan wax qori karin xitaa haddaysan awoodin inay kaba iibsadaan ama xitaa haddii ay leeyihiin oo kaliya beer ciid ah oo ay ku ciyaaraan inkastoo al-shabaab ay marar badan qaraxyo ismiidaamina ka geysteen Soomaaliya oo ah dal aan nabad laga helin muddo 30 sano ah haddana garoomada kubadda cagta ayaa ka mid ah dhismayaal dhowr ah oo weli taagan taasina waa sababta Soomaalidu ay ugu waalan tahay ciyaaraha inkastoo barnaamijkooda qaran uusan u soo bixin ciyaaraha adduunka 86 sano oo tartamo caalami ah haddana waa sababta Saadaq iyo Saad ay caan dhulkooda ugu yihiin sida madaxweynayaal markii ay diyaaraddu ku soo dhawaatay Suudaan Saadaq waxa uu bilaabay in uu buuxiyo warqadihii Saad malaayiin qofood ayaan weligood wax barasho helin walina waa ay wanaagsan yihiin Saadaq ayaa sidaa yiri qof waliba ma qumana inta ayaan ku soo gabagabeenayaa daawade qaybtan barnaamijkeena xiisaha badan ee maanin arayna inteen ku kulmayno qaybtan qayb xigta nabadgelyo